kulanti wanaagsan halkan waa Gra TV qodobada warkana waxa ugu waaweyn dawladda federaalka Soomaaliya Cabdirashiid Janar iyo Cornel Barhiir ay u adeegsanayso soo qabashada Axmed Islaam Maxamed Madoobe kuna wareejinaysa ciidamada tirada badan ee filla Soomaaliya ay ku daabulayso gobolka Gedo ciidamada Somaliland iyo kuwa Djibouti oo ku dagaalamay duulaadka Lughaye haddaba maxay tahay sababta dagaalkooda ka dambeysay maxaa khasaare oo ka dhashay warka ayaad ku daawan doontaan Ethiopia oo qiyaanada ugu weynad la damacsan Soomaaliya saraakiil Ethiopian oo ka shafay in marnaba Axmed Madoobe daacad uusan ka ahayn heshiiskii Ankara iyo burburinta MOU-ga la galay Somaliland yaa arintan oo tuhna cusub oo halisa muujinaysa senator ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka dalka dacwad ku soo oogay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kuna eedeeyay in gaf weyn uu ka galay bulshada Soomaaliyeed iyo dalka yaa arintan oo qatar cusub ku ah madaxweynaha xaalado siyaasadeed oo adag xilligan dhaxda ka taagan midowga Yurub oo muddo kordhin u sameeyay ciidamadooda badda ee ka howlgala Soomaaliya gaarsiiyayna ilaa 2027 inay sii joogaan oo ay ka shaqeeyaan biyaha Soomaaliya qodobadaas ayaan warkan kugu soo gudbin doonaa ee baweynaha hadii laga helo markale kulanti wanaagsan qodobadaas aad daawateen oo faahfaahsan ayaan idiin soo gudbin doonaa si ay ugu horreyn daawada waxaan ku xasuusinayaa in hadii lagu joogo waqtiga salaada soo gudato waajibaadka alle dibna ugu soo laabato daawashada muuqaalka Al-Rayyan Qur'an Online hoyga xifdinta Qur'aanka Kariimka online-ka ah dal iyo dibadda adigoo gurigaaga jooga ubadkaada iyo naftaada ku bar Qur'aanka Kariimka ah waxaa macadkan oo macallimiin takhasus leh ku diyaar yihiin barbaarinta ubadka barista Qur'aanka tafsiirka kitaabada muhiimka ah iyo af Soomaaliga iyo akhriska hadaba Al-Rayyan Qur'an Online oo arday cusub qaadanaya yaan laga buuxin liiskan kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda aynu ku bilownaa dawladda federaalka Soomaaliya ayaa Cabdirashiid Janar oo ahaa wasiirka hore ee amniga dawlad goboleedka Jubbaland iyo sidoo kale Cornel Barhiir waxay u adeegsanaysaa dagaalka maamulka Jubbaland iyo sidoo kale soo qabashada Axmed Islaam Maxamed Madoobe xilli filla Soomaaliya waaran ay ugu jartay hogaamiyaha dawlad goboleedka Jubbaland isla markaana hadda ay qorsheynayso mar kale in weerar culus lagu qaado kadib jabkii ciidamada dawladda ka soo gaaray Raas Kamboni sida la waradii lagu kala soo yahay xaqiijinayaan Cornel Barhiir iyo sidoo kale Cabdirashiid Janar ay dawladda federaalku ka dalbatay in la wareegaan hogaanka ciidamada tirada badan ee lagu daabulayo gobolka Gedo ee dawlad goboleedka Jubbaland si iyagu ay hormuud ugu noqdaan duulaanka la doonayo in lagu soo qabto Axmed Islaam Maxamed Madoobe ama lagu burburiyo qorshihiisa siyaasadeed iyo natiijada doorashada uu ku qabsaday magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ee dawlad goboleedka Jubbaland ila xogogaal ayaa Gra TV waxay u xaqiijiyeen in Cabdirashiid Janar iyo ciidamo uu la socdo maanta diyaarada looga qaaday magaalada Muqdisho caasimadda dalka lagana dajiyay gobolka Gedo iyadoo dawladdu doonaysa in magaalooyinka Garbaharey iyo sidoo kale Baar Dheere ay noqdaan fariisimaha ugu waaweyn ee ciidamada dawladdu ay geenayso gobolkaas sidoo kale ciidamo tiro badan ayaa maanta lagu daabulay gobolka Gedo iyadoo diyaaraduhu ay ku soo qulqulayaan gobolkaas ay u geeyaan ciidamo u badan kuwa militariga Soomaaliya dawladda federaalka ayaa markaan doonaysa in habka duwan hanaanka hore ku wajahdo dagaalka hogaamiyaha dawlad goboleedka Jubbaland ayna adeegsatay istiraatiijiyad ka duwan tii lagu jabiyay ee ciidamada dawladda guuldarada xooggan ay kala kulmeen Raas Kamboni oo weerar culus ay ku soo qaadeen Axmed Islaam iyo maamulkiisa oo ka yimid waddo aan la filaynin kadib markii ay soo dhaxmareen deegaanada ay maamusho kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab kadib xiriir toos ah oo dhaxmaray hogaamiyaha Jubbaland Axmed Islaam Maxamed Madoobe iyo kooxda waxaa hadii arintan ay u suurto gashay dawladda federaalka Soomaaliya ay doonaysaa in shakhsiyaad istiraatiijiyad ahaan aad u yaqaan xeeladaha Axmed Islaam Maxamed Madoobe sidoo kalena deegaanada Jubbaland si fiican u kala yaqaan ay u adeegsato dagaalkiisa maadaama qorshihii hore uu hogaaminayay Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre uu fashilmay waxa ugu ay tibaaxayaan in qorshahan uu kanay Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo isagu dusha saartay mas'uuliyadda ka taqallusida hogaamiyaha dawlad goboleedka Jubbaland Axmed Islaam Maxamed Madoobe isku naxariistii joogitaankiisa hogaanka xilka uu hadda hayo ee Ra'iisul Wasaaraha iyo sidoo kale Axmed Islaam Maxamed Madoobe bixitaankiisa waxay lagu wadahayaa tilaabooyinka xiga ee dawladda ay qaadi doonto waxaa sidoo kale gobolka Gedo la geenayaa hub casri ah oo kamid ah kan dhawaan dawladda federaalka Soomaaliya ay ku wareejiyaan dawladda Masar iyadoo sidoo kale ay adeegsanayaan ciidamada dawladda ay ku soo gurayso dhinaca gobolka Gedo diyaaradaha qumaati u kaca helicopterka iyo diyaarado kale oo la filayo in dagaal hadii ay dhacaan dhankooda ay ka qayb qaataan garab siyaana ciidamada dawladda Soomaaliya
filla Soomaaliya ayaa Axmed Madoobe iyo maamulkiisa waxay ku shaabadayseen xiriir ay la leeyihiin kooxda argagixisada ah waxaana ay doonaysaa inay ula dagaalanto si la mid ah kooxdaas maadaama dowladdu ay aaminsan tahay in Axmed Madoobe dhankiisa uu garab ka heli karo kooxda hadiiba ay u fududaatay in deegaanada ay maamulaan ciidamadiisu ay soo dhaxmaraan. madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa horey uga sheegay khudbad uu ka jeediyey masaajidka ku yaala madaxtooyada in marar badan Axmed Madoobe uu kula kaftamay in weli saaxiibadiisii hore xiriir uu kala dhaxeeyo sababtaasna ay tahay Jubbaland muddada uu joogay sababta uusan wax dagaal ah ugu bilaabin deegaanada kooxdan ay ku sugan tahay. hase yeeshee kadib arintaas waxaa soo baxday arintan kale ee khatarta ah iyadoo wasaaradda gaashaandhigu si cad ay ugu shaabadaysay hogaamiyaha Jubbaland xiriirka kooxdan sidoo kalena la sheegay adduun lacageed oo ku dhow $1 milyan inuu ku siiyay argagixisada deegaanada ay maamulaan ciidamadiisu inay dhex maraan. si kastaba waxa isha lagu wada hayaa waxa labada nin ee miisaanka culus ku leh deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland waa Cabdirashiid Janan iyo sidoo kale Cornel Barhiir ale ay ka bedeli karaan xeeladaha dowladda iyo qorshaha ay doonayso inay ku burburiso natiijada doorashadii Kismaayo ka dhacday 25 bishii tagtay sanadan 2024 iyo damaca Axmed Madoobe ah inuu sii joogo hogaaminta maamulkaas 5 sano ee soo aadan arintaas oo si weyn u diidan tahay dowladda dhexayna u aragto mid ka mid ah qataraha ugu waaweyn ee ay wajahayso fashilin karana damaceedaha in dalka ay ka qabsoonto doorasho qof iyo coda. Axmed Madoobe wixii ka horeeyay shirka ugu dambeeyay golaha wada tashiga qaranka wuxuu la duubnaa filla Soomaaliya waxaana si weyn uga la shaqeynayay daadejinta arrimaha dastuurka iyo dhameystirkiisa iyo sidoo kale ka shaqeynta sidii dalka loo gaarsiin lahaa doorasho qof iyo coda waxay wax isbedeleen daqiiqadihii ugu dambeeyay ee shirka golaha wada tashiga qaranka isagoo si cad xilli la doonayay in warmurtiyeed la soo saaro ganafka ugu dhuftay dhammaan wixii socday sheegana dalkan in doorasho qof iyo coda aysan ka qabsoomi karin ee maamul goboleedyada loo fasaxo in doorashadooda ay qabsadaan dalkana doorasho dadban dib loogu celiyo. dagaalka halkaas ka soo bilowday waa midka gaaray in waaran loo jaray Axmed Madoobe isla markaana dowladda ay ku eedeyso in khiyaano qaran uu ku kacay haddana lagu shaabadayo ka mid ahaanshaha kooxda argagixisada ah sidoo kalena filla Soomaaliya hadda ay doonayso in lagu weeraro deegaanada Jubbaland ciidamadiisu ay ka joogaan si ugu dambeyntii awood loogu adeegsado gacantana loogu soo dhigo. dhanka kale xogaha meelena ayaa tibaaxaya in Axmed Madoobe oo xaaladiisa caafimaad laga deyrinayo dowladuna ay diiday diyaaraduhu inay ka qaadaan magaalada Kismaayo odayaasha dhaqanka ee beeshiisu xiriir ay la soo sameeyaan filla Soomaaliya si loogu ogolaado hogaamiyaha Jubbaland in loo qaado magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya halkaasna loogu soo dabiibo. Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa la sheegay arrintan inuu ku gacan sayray si cadna u diiday Axmed Madoobe inta tilaabada uu qaaday uu ku taagan yahay uu sheegay inaysan jirin wax fasaxa oo dowladdu ay u sameyn doonto amaba wax asxaan ah oo dowladda federaalka Soomaaliya u sameyn doonto. si kastaba waxa isha lagu wada hayaa hanaanka isku bedeli doonto iyo sidoo kale tilaabooyinka xigi doona ee xiisada filla Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland ee Axmed Madoobe uu hoggaanka u yahay. qaybihii hore warka Gratifa ay daawanaysan wararka ka imaanaya gobolka Awdal ayaa waxay sheegayaan in ciidamo ka kala tirsan kuwa dowladda Djibouti iyo sidoo kale militariga Somaliland ay ku dagaalameen duleedka deegaanka Lughaya halkaas oo la sheegay in dagaalo culus ay ka dhaceen. ila warada lagu kalsoon yahay ayaa inoo xaqiijiyeen ciidamada Djibouti ay ka soo tallaabeen xadka intaas kadibna ay salaan ciidamada Somaliland ka tirsan oo ogaaday qorshaha iyo dhaqdhaqaaqyada ciidamada Djibouti ay wadaan waxaana dhex maray dagaal waqti kooban socday. xogu waxay tibaaxayaan in hal askari uu ku dhintay isku dhacan iyada oo markiiba ay soo farageliyeen taliyaasha ciidamada booliiska Somaliland iyo Djibouti oo xaaladda dejiyay ciidamadana kala qaaday. deegaanka ay ku dagaalameen labada ciidan ayaa ah goob ay si gaar ah Somaliland ciidamo u geysay mana ahan markii koobaad ee sidan oo kale ciidamada Djibouti ay uga soo tallaabaan xadka una soo galaan gudaha deegaanada Somaliland maamulkooda ay sheegato. xukuumadaha labada dhinac iyo sidoo kale taliyaasha ciidamada midkoodna weli kama aysan hadleen dhacdadan iyo khasaaraha ka dhashay midkoodna waxaana ay dhinacyadu doonayeen in hoos loo xalliyo oo xogtan aysan banaanka imaanin amaba xaaladdu aysan sii baahin oo dagaaladu aysan sii ballaaran. dowladda Djibouti ayaa la sheegay in dib ay uga saartay ciidamadeeda booliska ahaa ee soo tallaabay deegaanada ay yimaadeen waxaana askariga dhintay uu ka soo jeeday dhinaca dowladda Djibouti. deegaankan ayaa waxaa dega beesha Ciise laakiin waxay ka tirsan tahay deegaanada Somaliland. dowladda Djibouti waxa ciidamo fara badan hore ay u keentay aagga Lughaya iyo Seylac si ay ugu garab siiso ciidamada dadka deegaanka halkaas iska abaabulay kana soo horjeeday qorshaha dowladda Itoobiya ay doonaysay inay ku goosato qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya iyo cabsida laga qabay in weerarada ay ku soo qaadaan ciidamada dowladda Itoobiya iyagoo fulinaya
MOU-ga sharci darrada ahaa ee Muuse Biixi ay la galeen. Sidoo kale Muuse Biixi iyo xukuumaddiisu inta ay jireen waxay ku eedeeyeen dowladda Jabuuti in hub iyo ciidamo fara badan ay soo gelisay Saylac iyo Lughaya, halkaasna ay ka abaabulayso kooxo ay ku sheegeen in maleeshiyaad argagixiso ay yihiin oo la doonayo in lagu burburiyo Somaliland. Inkasta oo Ismaaciil Cumar Geelle iyo dowladdiisu war ay soo saareen ay arrintaas ku beeniyaan, tilmaameenna inaysan jirin wax dhaqdhaqaaqyo iyo faragelin ah oo ay ka wadaan deegaanada Somaliland ay ka arrimiso. Si kastaba xaaladda deegaanada lagu dagaalamay ayaa hadda waxay tahay mid aad u degan, waxaana la sheegay in Muuse Biixi iyo sidoo kale madaxweynaha Jabuuti ay ka wada hadleen dejinta xaaladda iyo tanaasulidda wax walba oo colaadda sii wadi kara. Madaxweynaha cusub ee Somaliland Cabdiraxmaan Ciro ayaa gebi ahaanba wuxuu la yimid qorshe siyaasadeed oo ka bedelan kii Muuse Biixi, isagoo hagaajinaya xiriirka Somaliland ka dhexeeya dhinacyada deriska ay la tahay ee Jabuuti ay ugu horeyso, sidoo kalena qaadaya siyaasad deganaansho ku dhisan oo colaad iyo caadifaad ka maran. Waxaa Ciro uu doonayaa in cid walba oo colaad ay kala dhexayso Somaliland xaaladooda la xalliyo, sidoo kalena lasoo afjaro dagaalada gudaha qabaa'ilada Somaliland ka dhex jira si xal waara loo helo, loogana gudbo qatarihii badnaa ee Muuse Biixi iyo maamulkiisu ay abuureen, kuwaas oo dagaalada culus ka qarxiyey qaybo badan oo ka mid ah deegaanada Somaliland, qalalaasaha iyo xasilooni darradana abuuray. qaybihii dhexe ee warka Gratiif ay daawanaysaan. Dowladda Itoobiya ayaa khiyaanadii ugu weyneed waxay la damacsan tahay Soomaaliya kadib heshiiska ka dhacay Ankara, sida ay xaqiijinayaan saraakiil Itoobiyaan ah. Qaar ka mid ah saraakiisha Itoobiyaanka ayaa waxay aaminsan yihiin in ra'iisul wasaaraha dowladda Itoobiya Abiy Ahmed marnaba daacad uusan ka ahayn heshiiskii Ankara iyo sidoo kale burburinta MOU-ga uu la galay Somaliland koodii bishii koowaad ee sanadan 2024. Xubnahan waxay tilmaameen in Abiy Ahmed fashil iyo ceeb weyn ay ka soo raacday heshiiskaas, isla markaana guuldarro weyn uu ka soo galabsaday, iyagoo aaminsan in sababta guuldarradaas uu soo qaatay ra'iisul wasaaraha Itoobiya ay tahay hal arrin, in uu sharuud uga dhigo dowladda federaalka Soomaaliya, taas oo ah in haddii ay doonayso xaaladda in lasoo afjaro la siiyo goobtii Muuse Biixi uu calaamadeeyay, halkaasna saldhig ciidamadooda badda ay ka samaystaan, dekadana ay ka abuurtaan. Haddii dowladdu ay la timaado maran kale Itoobiya in la siiyana gebi ahaanba uu ku gacan sayro, arrintaasna meesha uu ka saaro. Tani waxay muujinaysaa in khiyaano weyn Abiy Ahmed ugu hoos duugan yahay heshiiskaas, oo la filayo in si rasmi ah loo dhammaystiro marka la gaaro bisha Febraayo ee sanadda soo aadan, xilligaas oo madaxweyne Erdogan uu imaanayo qaaradda Afrika si gooni ah wadamada Soomaaliya iyo Itoobiyana safar ugu bixinayo. Dhan kale, falanqeeyaasha arrimaha siyaasadda ee dalka Itoobiya waxay sheegeen in saameynta sii koraysa ee Turkiga ee xalinta khilaafka gobolka ay sii wiiqayso awoodda Itoobiya ee ku aadan doorkeeda hogaamineed ee Geeska Afrika. Waxay ku eedeeyaan ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed inuu ku guuldaraystay hanaanka ballaaran ee Itoobiya ay ka lahayd gobolka, gaar ahaan kadib wadahadaladii nabadeed ee lagu qabtay magaalada Ankara. Falanqeeyaasha ayaa waxay sheegeen in wadahadalada Turkiga ay muujinayaan isbeddelka ku yimid dhaqdhaqaaqa awoodda gobolka, iyadoo Abiy Ahmed iyo maamulkiisa lagu dhaleeceeyey ku tiirsanaanta dhexdhexaadinta dibadda halkii si toos ah ay ula xiriiri lahaayeen dowladda federaalka Soomaaliya. Waxay ku doodayaan falanqeeyaashu in tani ay tahay calaamad muujinaysa daciifnimo ku timid istiraatiijiyadda siyaasadeed ee arrimaha dibadda ee Itoobiya. Saameynta sii koraysa ee Turkiga ee xalinta khilaafaadka gobolka waxay sii wiiqaysaa awoodda Itoobiya ee ah inay xakamayso sheekadeeda, waxayna xoojinaysaa mowqifka Soomaaliya ee khilaafka gobolka, ayay ku yiraahdeen qoraallo ay soo saareen. Waxaa intaas ay ku sii dareen in natiijada ka soo baxday wadahadalada Ankara ay dhabarjab diblomaasiyadeed ku yihiin dowladda Itoobiya, taasoo ay sheegeen inay si cad su-aal u gelinayso istiraatiijiyadda fog ee Itoobiya ee ku aadan gelitaanka badda cas iyo sidoo kale doorka ay ka ciyaarayso awoodda gobolka. Guuldarrada Abiy Ahmed uu ku wajahay xalinta xiisadda kala dhexaysa Soomaaliya ma ahan oo keliya inay wiiqayso saameynta Itoobiya ee gobolka, balse waxay sidoo kale sii xoojinaysaa shakiga laga qabo hoggaankiisa, iyadoo ay sii xoojinayso caqabadaha dhaqaale iyo sidoo kale juqraafiyadeed ee ka jira Itoobiya, ayay qoraaladooda ku yiraahdeen. Abiy Ahmed ayaa si kastaba dhaleecaymo culus wax uu kala kulmay heshiiskii Ankara, waxaana ay ku tilmaameen diblomaasiyiinta iyo siyaasiyiinta Itoobiyaanka in fashil xoogan iyo guuldarro arrintaas ay ku soo dhammaatay, Itoobiyana ay hogasho iyo ceeb u tahay wixii ka dhacay Ankara. Dhanka kale, senatarro ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhankooda weerar culus waxay ku qaadeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, waxayna ku tilmaameen in uu ku kacay arrin ceeb ku ah Soomaalida kadib heshiiskii ka dhacay magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga.
doctor cabdi ismaaciil samatar oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya barana ka jaamacadda Minnesota ayaa ku eedeeyay madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu ogolaaday in Soomaaliya ay ulowdo taariikhda kala dhaxaysay Itoobiya taariikhdan oo ah mid madow oo ku xusan dagaallo dhiig badan oo daatay iyo sidoo kale burburinta Itoobiya ee Soomaaliya senator samatar waxa kale uu ku dhaleelay madaxweyne xasan sheekh maxamuud qodob ka mid ah heshiiska Ankara oo faraya Soomaaliya inay qirto dhiigga Itoobiya oo ciidamadoodu ay ka tirsan yihiin howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika waxay ku tusaysaa dadka shirka Ankara nooga qayb galay in ay wax ku dhacaan garaadkooda amaba ay iloobeen wixii soo kala dhaxmaray Soomaaliya iyo Itoobiya ayuu yiri su'aalo badan ayaa ka dhashay qodobkaas waxa meesha laga saaray gobodfaladii ciidamada Itoobiya ay ka geysteen Soomaaliya 2007 ilaa 2009 ciidamada Itoobiya waxa Soomaaliya laga saaray heshiiska dhaxmaray ra'iisul wasaare Nuur Cadde 2008 iyo sidoo kale ururkii bahaysiga dib u xoreynta Soomaaliya ee ARS la dhihi jiray iyo dawladii ku meel gaarka ahayd ee madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Nuur Cadde ay hogaaminayeen Itoobiya ciidamadeeda waxa lagu xasuustaa in gumaad badan ay ka geysteen gudaha Soomaaliya qodobkana wuxuu kamid ahaa mid kamid ah waxyaabihii sida weyn ay ugu doodaysay dawladda federaalka Soomaaliya hase yeeshee waxa hadda u muuqata in kadib heshiiskii Ankara wax badan ay isbedelayaan dawladda federaalkuna ayba ilowday in ay miiska soo saarto xadgudubyada ciidamada Itoobiya ay geysteen halka Itoobiya ra'iisul wasaarahoodu uu ku doodayay in ciidamada Itoobiya wax badan Soomaaliya ay u qabteen in dhiig badan ay u hureen iyo in Soomaaliya dhankeeda lagu cadaadiyay in ay qirto nafurnimada Itoobiya u sameysay iyadoo warmurtiyeedka Soomaaliya ay ku sheegtay in nafurnimo badan Itoobiya u sameysay wadanka Soomaaliya ciidamadeeda ka tirsan nabad ilaalintuna wax badan ay qabteen intii xiisadu ay jirtay dawladda Soomaaliya waxa si weyn ugu eedeysay Itoobiya ciidamadeedu xasuuq baan inay geysteen bedelkii laga filayay nabad iyo xasilooni inay ka shaqeeyaan iyo inay sidoo kale taabaan kooxaha argagixisada ah si gooni ah kooxda Al-Shabaab oo Itoobiya la aaminsan yahay in fursad weyn ay u abuurtay kadib heshiiska ay la gashay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi xilligaas oo howlgallo ballaaran dalka ay ka socdeen deegaano badan oo ka tirsan gobolada dhexe ee dalkana maleeshiyaadka kooxda laga saaray sidoo kalena dawladdu ay qorsheynaysa in la qaado wajiga ugu dambeeya howlgallada la doonayo koonfurta dalka in kooxda looga cirib tiro sida qaramada midoobay beesha caalamka iyo sidoo kale dhinacyada sirdoonka caalamiga ahba ay qireen kooxda ayaa dib isku dhistay inta ay jirtay xiisada Soomaaliya iyo Itoobiya dhalinyaro badanna waxay ku qoratay habmarin habaabina iyadoo ka dhaadhicinaysa inay la dagaalamayaan dawladda Itoobiya oo duulaan ku soo wadanka inay qaranka difaacayaan arintaas oo dhalinyaro badan lagu qalday kooxduna ay ku heshay awood ciidan iyo sidoo kale mid dhaqaale intaba si kastaba waxa dad badan oo Soomaaliyeed ay dhaliilsan yihiin heshiiska ka dhacay Ankara sababta soo dadajisay waxa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku qasbay inuu kaligiis ka go'aan goosto Soomaalida inteeda kale xilli hore dawladda federaalku marar badan ay ugu celcelinaysay in heshiiskaas oo qadiyada Soomaaliya ku dhisan marnaba dawladdu aysan kala gorgortami doonin dawladda Itoobiya ilaa iyo inta si cad ay u burburinayso miyuugi Muuse Biixi ay la gashay sidoo kalena ay raaligelin toos oo Soomaaliya u soo dirayso Itoobiya ku darso oo wali raaligelin kama bixin miyuugaas kamana hadlin Abiy Ahmed markii dib ugu laabtay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya Soomaaliya iyada ayaa si warbaahinta marsiisay in luuqadda diblomaasiyadeed ee warmurtiyeedku ku qornaa laga dheehan karo in Itoobiya MOU-gaas ay ka tanaasushay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya wax laga weydiiyay halka MOU-gaas uu ku burburay ayaa sheegay warmurtiyeedkan ay ku caddahay in Itoobiya arintaas ay burburisay oo ay aqoonsatay amaba ilaalinayso madax banaanida iyo midnimada Soomaaliya xasuusin hadaynu dib ugu laabano markasta oo horjoogayaasha amaba hogaamiyaasha Itoobiya ay hadlaan ayna ka hadlayaan arinta MOU-ga kama tagi jirin mar walba inay ilaalinayaan madax banaanida iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed ayna aqoonsan yihiin iyo in ay ku faanaan in dhankooda kaalin weyn ay ka qaateen horumarka nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya ugu dambeyntiina war-saxaafadeed ka soo baxay ururka midowga Yurub ayaa waxaa shaaca looga qaaday in la kordhiyay howlgallada amniga iyo difaaca ee Soomaaliya ilaa laga gaarayo 2027 bisha Febraayo 28keeda tilaabadan waxaa kamid ah 3 howlgal oo midowga Yurub uu ka fulinayo Soomaaliya sida howlgalka ciidamada badda midowga Yurub ee Atlanta la yiraahdo howlgalka tababarida midowga Yurub ee ciidamada Soomaaliya iyo howlgalka awood dhisida midowga Yurub ee Soomaaliya war-saxaafadeedka waxaa shaaca looga qaaday in go'aankan uu daba socdo dib u eegis istiraatiijiyadeed oo lagu sameeyay howlgalka midowga Yurub ee Soomaaliya iyo geeska Afrika oo ujeedkiisu ahaa in wax uu ka qabto caqabadaha amni ee soo kordhay iyo sidoo kale kor u qaadida
doorka uu ku leeyahay amniga badda. muddo kordhintan waxaa salka ay ku haysaa go-aankii hore ee golaha midowda Yurub ee December 5, 2023 ee ahaa in muddo kordhin loo sameyn karo. ciidamada ururkan waxay diiradda saaraan awoodaha hay-adaha amniga Soomaaliya, bixinta la talinta istiraatiijiyadda, la talinta iyo tababarada, iyo sidoo kale ka qayb qaadashada sugidda amniga badda Soomaaliya. si kastaba dowladda Soomaaliya ayaa waxay hadda xoogga saaraysaa dhismaha ciidamadeeda badda si looga maarmo in ciidamo shisheeye badda ay ilaaliyaan, iyadoo la aaminsan yahay in wadamada ciidamadoodu ay joogaan biyaha Soomaaliya dhankooda ay iska daldashaan kheyraadka dalkeena oo aysan jirin cid kale xisaabtanta keliyana ay baagsadaan burcadbadeeda Soomaalida ee ka kacay kheyraadkeena sharci darrada lagu qaadanayo iyo dhibaatada loo geysanayo doomahooda oo jariifku dhibaato badan ay ku hayaan. guud ahaan intaan kusoo gabagabeynaya wararkii ugu dambeeyay arrimaha siyaasadda. daawad hadday tahay markii ugu horeysay ee channelka soo booqatan ugu soo biir, subscribe dhaw si share garaa saaxiibo badan si uu gaaro. tani kulanti dambe amaan Allah.